horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino argooyo dhalalan maqnaashahaagii muran baa ka yimido waa leesku mage waadigii maqnaaye xaggeed aaday waayahaa warhaale gooyo hadduu kaa maqnaa balaayaa kaa maqnayda maxaa ugu yeeranaysaa midaan shawhar iyo shabeellada dhaxu beere falo u aadee war wiilkii webigu ku dhacay muxuu ugu soo saari wey war onogkaasjay webigan iskaridim haddii gooyo biyaw bahaara kaalasaanamay waayahaye shabeellada dhexe shinniyaa lagu beeraha la dhahaye beertiisa ma shinniyaa ka baxda aroo horaan waxaa loo yidhi la falteen la beegtay karoonaa la dhacay yaa alloo war waaweyn waa aroo gooyo ma idinka maqna mana idinla joogin ee kalamaanee karkarka iyo kuleelka intaad iska dhaaftiin gooyo waa idinla joogya hadda wixii rabtiin iwaraysta saacadtu feer weyne soo dhowow xaggeed ku maqnayd arro kuleellees ahaaye beryahaan saqaartiisay haalkeedaas yahay say kaa noqotin sagaara maala helaa kuleelka waxaaba ka sii daran bac ii bucde waa fiigdi dhammaanteed war gooyow xaggee sagaar ka keenaya qandaraaskii sagaaraha soomaaliya qadaraa la siiyey war adeer yaalo war ma haysaan aan idiin warramo eritariya cunaqabatayntii hubka waa laga qaaday lambaahan habiiniyi waraabiyaashan horaanka doray fiirihe war sheeha adeesa noo siiyo dahowlanka war kulella ku sii shidaysa maadaa dharji cunaqabatayntii waa laga qaada markaa leedaa markii hore yaa saarar sawrida qodaa lama qorin yaa dhuuntooda ku dhegi kara war soomaaliyana waxaa la yidhi cunaqabataynta ha lagu sii adkeeyo war soomaaliya cunaqabataynta hubka ha laga qaado waxay la mid tahaa la yidhi shabaab cunaqabataynta ha laga qaado oo ha la hubeeyo war qoladanan jaarka nahay cunaqabataynta yaan laga qaadin oo ha lagu sii hayo waayo somalilan bay aday soo weerarayaan maxaas itrine jawaraa cunaqabateen la saari maa itri arro war hawaadla iliimidhinaa waa laka abuuri war munutri gruub waxay dhaheen hubka la siiyo ciidanka soomaaliya shabaab uu gacan galaa oo kaali wax lisweydii muxuma iyagu maa gacanta u saaraan midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooni yahay shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan munutri gruub miyaa tidhi aryaada militar gruub mandhimana mase waa naago militar gruubaan leeyin war af ingiriisi wasangalada iska dhaaftan una naftaano og sababtoo ee dharka hooba la heli hubka seeli kuwaayi war taliyaha militariga wuxuu yidhi ciidankii darkiisii farahu ka baxay cid kastoo laami taagan waa la sii yidhi war waxba kama ogid anigu yahowe wasiirka gaashaandhigu wuxuu yidhi warshadii dharka ciidanka samayn jirtay dib baanu ku cinaynaa war dalkeennu warshada ma lehe wasiirka gaashaandhigood sheegaysaa annagaa wadanna musharaxaan ninkii baydhaba ka lahaa soo maaha wasiirka gaashaandhigasin sheegasan kuri yar oo koonfurta suudaan kooba ka gada jiriyo marka mayka aalay inoo warshadoogii shagahanlay wili ka aalohay war buuqii qaylad maalmood meesha la joogtaan ee dawladda wax ka sheegaysaan ama wax naga gataa meesha noo dhaafanimaya war hadda aniga idib koobshaa wax cadays koo badan yahay war maanta shay dheer dalbanaysaa wasiirkiin ma soo shaxad horaan waxaa loo yiri aqligaaga disbato macriifadaas yareeha warnimada waxaa la ogaaday shirkad Itoobiyaan oo Soomaaliya hubka keeni jirtay hadda dawladda Itoobiya wax allaale iyo wixii shirkadaas ka shaqayn jiray xabsiga u taabtaa la yiri ninkii u sareeyane waxaa la qabtay isagoo koonfurta Suudaan u tahriibayo oo kaali wax lisweydii muxuma Itoobiya hubka laga gadaay meediide firiyay banu sii jirtiye war madaxweyne farmaajo oo ayaantan lagu eedeynayay inuu sharaxaad ka bixin xiriirka iyo heshiiska Itoobiya kala dhaxeeya wuxuu yiri heshiiska aan galay Itoobiya waa iskaashi iyo isdhexgal siyaasadeed iyo wax wada qabsi dhaqaale iyo ammaan ah geeska Afrika ayuuna heshiiskaas wada saameynaya buu yiri farmaajo wuxuu yiri faragelinta Itoobiya albaabadan ka soo xirnay war wiligiin bakar ikabadaas ka tolin jarteen kar ikabadna maska toomayan war madaxweynaha mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ma la qabaa warka madaxweyne farmaajo sheegay war Muuse Biixi aad buu uga xumaaday xiriirka ka dhaxeeya Abiy Ahmed iyo farmaajo xaafda waa ka xumaaday aribo waa ka xunaa arintaas bayo maxaad ka xuntahay xiriirka farmaajo iyo Abiy Ahmed baa waa ka xunaa wari war xiriirkan aad sheegaysaan war baa igula soo dhacay Donald Trump baa wuxuu yiri madaxweyne Putin waa saaxiibkeen senator dhintayo John McCain la dhihi jiraa wuxuu yiri haddii Putin saaxiibkeen yahay yaa cadowgeena war Itoobiya amxaara iyo Tigray kama taliyaan hadda Oromaa ka talisa war nimayo Mingistaya Maxamed Siyaad Baraaday cadow ahaayeen qasab ma aha cadowtooyadaas inay saameyn ku yeelato farmaajo iyo Abiy
abiy axmed war cadowga falastiin waa israa'iil aniga cadowgaygu waa gabadhaa shaaxa gadoo dayntii ii diidday oo warkiina waaba waaweyn yahay carabtii isqalaafsaneed ma heshiiyaan mase weli waa is hortaagan yihiin warnimiyow anigee ka warsiinhaaye gabalkii koonfur galbeed leerahay bay dhowjanaa isanba goradaasan niman hamaasid wadogeega habambahi maylayinkasaasana isan abuu mukhtaar roobo usii dooradaane buug 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 tirrig laylaha ku dhaha erireed wariya wala isin wadan wal socdawma ee ayadoo hasiinka dhah dhuumaday minadheedinka nagadaasana mise maka nagadaasan ala eri maka nagadaw wulma gula leeray goortiyoo la gobaday minadheediyoo la kaharayaydaade oo kaali wax lisweydiiyey muxume mukhtaar dawladda ma la dooro karaaba dhehaysay warkaas maa run eh buh mukhtaar roobow dooran mayse lacag ma haysataan meesha lafta gareeroo lacag haystaa maraya wariya idin maad isaagsay habambaheen biilja wala siiyey may kale loo dhanoofaday un war gudoomiyii baarlamaanka koonfur galbeed baaba madaxweyne laga dhigay madaxweynaha kale muxuu yahay aroonnimayo anaa warnin sheega khabri iyo qafka loo wado ma la kala qariyaa la yidhi haddii la kala qariyna arro khasaara imaa haysaa yahu war safiirkii maraykanka oo la yidhi waa khabiir afrika si fiican u yaqaan muqdisuu ka soo degey maanta wixii ka dambeeyena safaaraddu dhex fadhanaa la yidhi oo haddii isdhex fadhiistana maxaas ka qabanaa markaas wal ninkii somalilan ma aqoonsanaya niyow war hay-addii culummada soomaaliyeed maanta afkay furteen mawluudayeena hay-ad iyo culummana maxaa isku keenay oo afkay furteen marka la leeyahay baryaha may sownaayeen warwarka waa ku daadataanina dhegaysta waryaada sheekh nuur baaruud wuxuu yidhi dawladdu midna waa ku guulaysatay midna waa ku fashilantay wuxuu yidhi waxaan arki jirnay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare 3 bilood ka bacdi shaarka isku dheggan kuwaani 2 sano wada shaqaynayaan oo weli isma qabsan buu yidhi wadaadada ando ayanga eray wala naga dhaxgeline wuxuu yidhi arrintaa waa ku guulaysteen laakiin waxay ku fashilmeen ambaankii bay ku fashilmeen uu yidhi dalka labada shabeelle inta shabaab joogana muqdisho nabad noqon mayso yidhi sheekhu hay-adda culimmada waaba lagu kalsoonaayo waa maxay fashilkay sheegaysaa war culimmadu waxay u hambaliyeeyeen reer beled xaaboo dhahay shabaab ilmihiisii naagihiisa naga baxan kismaayana sidaasay nabad ku noqotay dheheen muqdishona ilaa sidaas la yeela nabad ma noqonaysay dheheen war ulmadasin sheegasan inoo kutuba meelo katiiriyang man hor gobadaana unin reedba dudno aamile isku ena wariya culmo badanidina oo ammaan daradina aroo shibnaga dhabeerta aan kaafalane horaan waxaa loo yidhi sii walba yumaado saadirkayga waaye war culummadu hadday dhaheen shabaab carruurtooda iyo dumarkooda ha la bixiyo maa la yeeloo la ceeriyo war culummadu carruurta iyo hablaha in la ceyrsha miyay ku hambaliyeeyeen haa arro qori ii qiiciisa waa laysla tuuraa haddii kale aan jaawiyay ku reebayin war waraadi sheegase marasti imaatada mamnuucka eeyin war ilmaha iyo naagu intay joogaan abni noqon mayso anugu ilmahanba ka shakiye war dumarkaa ka daran war gurigubadi guri kale ambaas leela aray arad iyo awlaad unu dhaqanin roogaana afkiin walkareebada war shabeellaha dhexe wiil isagoo yar aabbihii la dilay ayaa ninkii dilay 25 sano kadib maanta dilay oo markaa maxaa loo yidhi isma oga agoon iyo ninkii aabbihiis dilay aargoosi haddaan la dhaafayn ambeeshiya kanoo kale ugu mudan aarsiga maysiinka araga jiraydad oo berikayinga noosanka aartan kan laakiin aawjee ariijay dilay aarsiras ma ewu warnimada dilaadilaa u dambeeyo khaatilnunkii khaatilaan la dhahaani dhahi war horaa loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin la iska sii daayo wuxuu doono waa inuu dilaasaa la dili waaye warya dilaaga hoobasan dili waaytan isna kadad yaraadasan warniya wasiirada berita waa kuwa sacsilaye maxaa daarayniyow annaguna ictiraaf baaban ka sugaynay warya waxaan aad nala hor fadhisaan hortaan nagala hortaga warya ictiraaf afgoy ku weydii warya koonfurka wada qosana war waxaas heshiis maan khudba sira la yiraahdo warya bilaan ba war goorta dhaw goorta